iyagoo dadku marka horeba jahawareer iskaga jiray ayaa haddana maxay ahaytoy waxa soo kordhay maalmahan ciidamadan iyo saldhigan la leeyahay maxay ahaytoy waa la bixiyay waxaan la yaab leh oo la yaabay bisha 7deedii habeenkii 8 soo galeysay ayaa waxa hadlay nin wasiir dawlad miyuu ahaa wasiir ku xigeen miyuu ahaa xanaanada xoolaha cali baa la yiraahdaa nin reer berbera ah cali wuxuu yiri wali lama soo dhigin qoraalka iyo heshiiska golaha wasiirada waxa la isugu yeeray labadii gole ee wakiilada iyo guurtida ee baarlamaanka la isku oran jiray haddii bisha 7deedii aan heshiiskii golaha wasiiradaba la soo dhigin oo la falaqayn oo laga wada hadlin oo danta ku jirta iyo dandarrada ku jirta aan midna la arag goorma golaha wakiilada la keenaya iyo ma se horeyn lahaa golaha wakiilada in heshiiska la keeno oo la soo akhriyo oo laga baaraandego iyo in la isugu yeeray u codeeyaan iyo ma horeyn lahaa waxay la tahay Soomaaliland wax bay ku heshiisay buug yar bay ku qorantay wixii ay ku heshiisay aad u fudud haddii wixii la fulin waayo wixii lagu heshiiyay haddii la fulin waayo de waxa ka damayn kara waa cid kasti way dareemaysaa xaqiiqdii waxaan soo dhaweynayaa wixii ummadda ku heshiisay in la fuliyo waxa aan xogogaal u ahay Puntland ciidamo jooga oo imaaraadka laftiisu keenay sidaas oo kale Puntland iyadu xaqiiqdii waa maamul goboleed kamid ah in Soomaaliya federaalka dawladda federaalka kamid tahay waxa marka ay ku jirtaa de itraaf bay haysataa iyadu waxay keentay saldhig bay bixisay maxay ahayto ciidan oo ay siisay imaaraadka waxa la keenay magaalo la yiraahdo qow ayaa saldhig ka dhigteen qow iyo ceelaya waxay isu jiraan wax yar way soo muuqdaanin wa garanaysan ceelayana waa xadkii Soomaaliland maxay ahaytay qowna waa xadkii maxay ahaytay Soomaaliya wax yar baa u dhaxeeya dadka deegaanka ah waa dad isdhalay oo maxay ahaytay isu wada garanaya waxa jira saldhigaas maxay ahaytay Puntland ay imaaraadka siisay ma xukunto Puntland ciidamadeeda ma xukunto waxay doonaan bay dalka ka sameeyaan cid hadallada aan idin leeyahay u fiirsada waliba baadi doona waxay radeen maraakiib bay keensadeen waxay radeen togagii bay waxay ka radeen ciidii niistii bay radeen iyagoo u jeeda maxay ahaytay niista marka la raro markii arrimaha la baadi doonay marka la geeyo xagga ayaa maxay ahaytay shaandha la gelinayaa dabadeedna waxa laga gurayaa dahab iyo macdan ku jirta xaqiiqdii markii la baadi doonay sida ayay noqotay waa laga daba tagay waxay sameeyeen diyaarado ay leeyihiin maxay ahaytay ummadii maxay tahay xijiyada guran jirtay bay ka baacsadeen xijiyadii oo xabka guran jirtay xoolay laayeen dad bay laayeen markii maxay tahay looga dacwooday maamul goboleedka Puntlandna anagu ma xukunno bay yiraahdeen waxay la tahay Soomaaliland inaanay u baahnayn dib maxay ahaytay tamaanta haysata ka badan taa iyo wax la mid ah ayaa inagu soo socotaa marka Soomaaliya oo la itiraafsan yahay oo maamul goboleedka Puntland ka mid yahay maxay ahaytay ay yiraahdeen ma xukunno saldhiga maxay ahaytay siisay Puntland bal Soomaaliland maxaa ka malaynaysan annagu waxaan u leenahay hal lagu soo dabaalo dalka sharciyad hal laga daayo ummadda dhibaatada hal laga daayo ummadda warwarka hal laga daayo ummadda wixii la qariyo waxa la yiri wixii aan daacad ahayn dabaday ka xun yihiin ba Soomaalidu ku maahmaahda hadii wuxuu yahay wax waxtar inoogu jira annaga taageerina golayaasha wakiilada iyo golaha baarlamaanka oo maxay ahaytay isku dhan iyo ummadda Soomaaliland hadii la soo bandhigo oo la inoo sheego khayraadka iyo waxa inoogu jira waxa ay yihiin miyay ina itiraafaysaa
maxay tahay imaaraadku oo ictiraaf bay ina siinaysaa waynu isaga bareereynaa haddii ictiraaf layna siinayo dhibaato kasta oo inoogu jirta ma dhaqaale fara badan oo maxay ahayd dalka wax ka bedelaya ayaa ku jira maxaa loo soo bandhigi waayay waxa ay Soomaaliland u qabanayso iyo waxa maxay tahay ku jira meesha anagu waxaanu leenahay xukuumadda waa inaa ka fiirsataanin waxad maxay ahayd ummadda u galeysaan waxani waa taariikh nimba maalin buu joogaa Soomaaliland madaxweyne kasta oo Soomaaliland yimi wax buu qabtay mid kasti wax buu qabtay xitaa maalintii qoriga la sitay lacag cadaa kii joogay wax buu qabtay kuwii ka dambeeyay wax bay qabteen nin walba magac iyo taariikh ba ka haray waxaan leenahay magac iyo taariikh bay idinka haray waxa aad ummadda Soomaaliland u keenaysaan ka fiirsada ayaan leeyahay xukuumadda maanta joogta golayaasha qarankana waxaan leeyahay waxa gacanta u taagaysan ee ummadda ku metashan ee maxay ahayd aad wakiilka kaga tihiin maalinta qiyaamada Ilaahay baa idin kala xisaabtamayo idin weydiinaya ka fiirsada waxa la idin keenayo habeen dhaweyd baan waxaan arkay nin hadlayo oo maxay ahayd wasiirka madaxtooyadu ahaa Maxamuud Xaashi wuxuu yiri heshiiska aanu soo galay iyo waxaanu Soomaaliland u wadno waxaanu maxay tahay u soo bandhigaynaa baarlamaankii dalka hadday diidaana waanu iska daynaynaa haddii ay yeelaanna dee way yeeleen dalka iyaga ka wakiila buu yiri baarlamaanka Maxamuud Xaashiyow markaad 9 guri ka kula shirisid oo 9 qabiil iyo 9 magac u kala yeeshid oo 9 heshiis la soo gashid ayaad leedahay baarlamaan ba dalka ka wakiila oo dabadeedna baarlamaanka dalka ka wakiila haday yeelaanin waa sax ma aha waa khalad baarlamaanku waa inuu madax banaanaada oo maxay ahayd isagoo madax banaan la soo hordhiga heshiisyada waxaan halkan doonayaa inaan kaga faa'iideysto tacsi u dirayaa madaxweynihii hore